السلام عليكم أصحابتا haddaba maxaa dhici doona lama oga waxaan ognahay Trump dhaartiisii maanta shirkiisa jaraa'id waa kii ku celiyay oo yiri Iiraan habeenta masaqda dhexe haddii heshiis ay ogolaawayso goobahooda korontada iyo buundooyinkooda qorshe ayaa nooga diyaarsan oo 4 saac gudahood waa ku baabi'inayna Iiraanna waa tii diiday heshiiskii 15 qodob oo Mareykanku soo bandhigay isla markaana 45 cisoo xabad joojin oo Mareykanku doonayay waxay tiri xabad joojin joogta ayaan u baahannahay iyo damaanad qada inaan nala soo weerareynin laba mar ayaa arrintan horey noo ku gaaday wada hadal been ah isla markaana nala soo weeraray haddaba marka diyaaradii qiyaamaha ayaa Mareykanku ay ka ciyeen kulay diyaaradda qiyaamaha wax loogu bixiyay ma garan kare diyaaraddan waxa la yiraahdaa Boeing 4B ayaa la yiraahdaa waxaana inta badan la kiciyaa marka xaalad degdeg ah oo halis ay jirto diyaaraddan waxa loogu talagalay madaxweynaha Mareykanka ku xigeenkiisa iyo wasiirka gaashaandhigga inay qaado isla markaana hawada sare waxay ku jiri kartaa 12 saacadood iyadoo aan wax shidaal u baahanin waxay leedahay diyaaraddan qol lagu shiro oo dadku ay ku shiraan saaran madaxda saaran qol madaxweynaha lagu brief gareeyo xaaladda halkay marayso loogu sheego communication-kii ay leedahay madaxweynuhu dhulka dadka jooga oo si toos ah iyo caalamka meel kasta uu kula xiriirayay iyo qayb resti oo lagu nasto la seexan karo oo la fariisan karo shaax iyo cunto iyo lagu cuni karo marka diyaaraddan waxa la leeyahay saaka ayaa la kiciyay 4 saac iyo 17 daqiiqo markay ahayd qaar kamid ah wargeysyada caalamka ayaa qorayay kuwa Mareykanka iyo waliba kuwa kaleba waxay leeyihiin diyaaraddan 4 saac iyo 17 daqiiqo saaka ayaa la kiciyay 6 mar ayaa waxa ay ku dul wareegatay xarunta hubka nuclear-ka uu yaala ee gobolka Nebraska markii dambana waa ay soo degatay marka maxaa dhici doona maxaa dhici kara ilaa ay hadda lama ogo Trump ma uusan ka gaban mana uusan ka labalabeynin qoraalkii shalay hanjabaadda uu soo qoray oo xitaa uu yiri warbalaayahayd ku dhacday marinka naga fura dad waalano baastariinaha tihiin haddii kala naarta ayaad ku waaraysaan uu yiri